sida muuqata waxaa soo baxaya khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Labada nin ayaa waxa ay isku hayaan xilka qaadis uu madaxweyne ku-xigeenku ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug, taasi oo ku eedeeyay inuu xagaldaaciyay dagaalkii ka soconayay deegaanada kala duwan ee Galmudug ee uu horseedka u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase ahaatee madaxweyne Qoorqoor ayaa arrintaasi isagoo ka difaacay wasiirka arrimaha gudaha, isagoo oo sheegay in arrinta uu ku eedeeyay madaxweyne ku-xigeenku ay tahay arrin aan waxba ka jirin. Madaxweyne ku-xigeenka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay waxa ay isku hayaan isaga iyo madaxweynaha. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug waxaa ka soo baxday warqad shaqo joojin loogu sameynayo wasiirka arrimaha gudaha, wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdi Waayeel. warqadaasi sida ay tilmaamaysay, wasiirku waxa uu gabay shaqadiisii ka saarnayd wasaaradda, waajibaadkii ka saarnaa ayuu gabay. wuxuu sidoo kale ku milmay xagaldaacinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta oo runaantii abaabulkiisu uu aad uga socday Galmudug. sidaa daraaddeed digniino kala duwan oon wasiirka siinay in uu ka tanaasulo kala furfurka ciidamada macawisleyda ee aan waqooyiga gobolka Galgaduud ka aroorinay, aan rabnay inay dagaal sidaasi la mid ah golaha deegaanka degmada Cawdwaaq oo uu faragelin baan ku hayay, iyo shaqadii dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ee loo diray oo ka mashquulay isku dir beelaha iyo isku dir madaxda sare ee Galmudug. waxyaabo badan oo uu wasiirku ku kacay. ugu dambeyn waxaan go'aansanay wasiirka inaanu shaqada ka joojino maadaama uusan u qalmin inuu u adeego bulshada Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed. dhaqangal maahan warqadda madaxweynaha, waxay kaliya dhaqangalaysaa haddii ay shirka ku yihiin madaxweynaha iyo wasiirku, haddii ay shirka ku yihiin xagaldaacinta la dagaalanka al-shabaab iyo kala furfurka ciidanka macawisleyda. hadday shirka ku yihiin waa wax gaar oo la gartay. wasiirku waxa uu ku sifoobay arrintaas dagaalka Soomaaliya ka socda iminka. qof allaariya qofkii xagaldaaciyana tilaabo sharciya laga qaadaya, waana qiyaamo qaran. madaxweynaha waxa lagu waafaqi karaa oo keliya waxa dastuurku uu qabo, waxa dastuurka uu ka baxsan yahay ama aan dastuurkeena aysan qabin hadduu qaato laguma waafaqayo. in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dadaalaya bil jooga Galmudug, dagaalkii shabaab ku foogan, waqti badan ku bixinaya in la xagaldaaciyo, la dabar jabiyo oo la furfuro ciidamadii. dastuurkeenana ma dhigayo, madaxweynahana kuma raacayo, ma ku raaci karo. arrintaasaan sheegay waa qiyaamo qaran. madaxweynuhu hadduu ka ogyahay wax oo Cabdi Waayeel ku raacsan yahay waa qiyaamo qaran, waa in lagula xisaabtamaa. hawshaas waa hawl noo gaar ah ee maamulka u gaar ah. waxaan kuu sheegayaa shaqo joojintaasi waa dhaqan gashay. waxaan farayaa hay-adaha ay qosayso in aysan la shaqayn wasiirkii hore arrimaha gudaha. la qaadistiisu waa dhaqan gashay. hay-adaha internationalka dhammaan waxaan farayaa cid la shaqayn karta Cabdi Waayeel wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ma jirto. waxa weeye wasiiru dowlaha kusima ah, asagaasaana lala shaqaynaya. warqadda madaxweyne Qoorqoor uu soo qorayna dhaqangal maahan, mana aqoonsanin, mana dhaqangelin.